inaad noqoto qof wax soo saar badan waxay ku xiran tahay inaad si weyn uga warhayso caadooyinkaaga iyo hawlqabadka maalintaada. Sidee u noqon kartaa qof productivity leh isla mar ahaantaana ku guuleysta maalintiisa? Waxaan muuqaalkan kooban kuugu sharixi doonaa 6 qodob oo aniga si weyn ii caawiyay haddaad ku dabaqdo noloshaadana wax badan ka bedelaya hawlqabadka maalintaada. Ku soo dhawow muuqaalka mar kale. Dhammaantiin waan jecelahay inaan noqono dad productivity leh, maalintooda ay u shaqeyso, hadafkooda u shaqeeyo, laakiin waxa dhacda mararka qaarkood waxyaabaha muhiimka ah nolosha inaan dib u dhigno. Aynu niraahno baraynu qabananaa saadabaynu qabananaa. Waana caqabada ugu weyn ee haysata. 6dan qodob waxay si weyn kaaga caawinayaan inaad noqoto qof productivity leh, qof wax soo saar badan ee u shaqeyso hadafkiisa maalintiisa iyo wiigiisa iyo sanadkiisa. Qodobka koobaad waa inaad leedahay hadaf. Hadafku nolosha wax badan ayuu ka taraa. Inaad leedahay hadafkaagu waa inuu ku jiro specific, wax la gaari karo, la cabiri karo, time leh. Hadafkaagu waa inuu noqon karaa mid dheer iyo mid gaaban, longi iyo short. Longi waa inuu noqon karaa 5 sano ilaa sanad. Intaa hadafkaagu waa inuu dhaxeeyaa. Markaad qorato hadafkaaga, waxaad hadafkaaga aad u samayn kartaa inaad short ku samayso ama breakdown aad ku samayso aad kala jeediso. taasina waxay kaa caawinaysaa inaanu hadafkii kugu badan aana dibna aanu dhigin. ayna ka baxdood iyo 3 bilood ayaad u kala jebin kartaa si aad u dhamaystirto hadafkaaga. haddaad saa samaysana waxaa suurtagal ah inuu hadafkaaga kuu shaqayn doono. sidoo kale nolosha hadafku wax badan ayuu u taraa, wuxuu u yahay direction ama jiho. qofka hadafka leh iyo kan hadafka lahayn labadoodu isku mid maaha. noloshaada mar walba hadaf u dhigo, hadafkaasina wuxuu kaa caawinayaa inaad nolosha wax badan suurtageliso. inaad wax badan suurtageliso isla waqti kooban. qodobka labaad ee kaa caawin doona inaad noqoto qof productivity leh waa inaad kala horumarisaa hawlahaaga muhiimka ah. aad ku samaysaa prioritieskii. waxaad isticmaali kartaa tikniiga Eisenhower oo ah waxyaabaha muhiimka ee degdega inaad soo horumariso aanad ku dabaqdo noloshaada. taasina waxay si weyn kaaga caawinaysaa inay hawlihii muhiimka ahaa marnaba aanay dib kaaga dhicin. haddii aad kala horumariso hawlaha kuwa muhiimka ee kuu yaala, kuwaas oo u shaqeynaya 3 bilood iyo 6 bilood aynu soo sheegnay markaynu hadafka dhigaynay, ayay u yihiin muhiim isla mar ahaantaana marna aanay dib kaaga dhici doonin waxyaabaha kuwa muhiimka. waayo waxyaabaha kuwa muhiimka haddaad gadaal mariso waxaa dhici doontaa inaad noqon doonto qof wax soo saarkiisu uu yaryahay, maalinba maalinta kasii dambaysanaya hawshiisu ay dib u dhacayso, sanad kastana uusan ku dhaafayo. taas saana kuugu dhicin waa inaad hawlaha kala horumarisaa, waxyaabaha muhiimkaana aad xagga hore aad soo horumarisaa, aanad ka shaqaysaa, waqti aad siisaa, waxyaabaha kale muhiimka aan ahayna aad gadaal marisaa. taasina waxay si weyn kaaga caawinaysaa inaad noqoto qof wax soo saar badan. qodobka saddexaad ee kaa caawinaya inaad noqoto qof productivity leh waa inaad leedahay to-do list. markii ugu horeysay haddaad soo samaysatay hadafkii aad soo kala horumarisay, qodobkeena saddexaad wuxuu sheegayaa inaad leedahay to-do list. to-do listigan wuxuu kaa caawinayaa inaad samaysato hawl kasta maalinteeda inaad ku dhamaystiri karto. maalintaada markay bilaabato ama habeenkii markaad sii seexanayso, waxaad samayn kartaa inaad warqad ku qorato ama mobilkaaga aad ku qorato waxyaabaha maalinta aad xaqiijin doonto si aan maalintaasi aanay kugu dhaafin. waxyaabaha waxaa jirta applicationo la isticmaali karo sida Notion ayaan isticmaalaa anigu. sidoo kale waxaa jirta to-do list oo qaybo kala duwan leh. haddaad isticmaashana wax weyn ayuu kaa caawin doonaa. sidoo kale mobile note-kaaga waad isticmaali kartaa. waxyaabo badan baa jirta maadaama technology-ga iyo waqtigan hadir ku jirno, waxyaabo badan ay noo fududeeyeen in ku samayn karno. haddaad jeceshahay inaad book ku qorto to-do list-gaaga waad qoran kartaa. haddaad jeceshahay applicationadana waad isticmaali kartaa sida to-do list-ga, Notion-ka iyo ababka kale ee lagu maareeyo hawlqabadka. sida application waxaa jirta caadooyinka lagu maareeyo sida Habits oo aad kala soo degi karto Play Store-ka. haddaad isticmaasho Android, haddaad isticmaasho iPhone aad kala soo degi karto App Store-ka. hadba kii kuu fududay isticmaali kartaa. muhiimaddu waxa weeye waa inaad leedahay maalintaada to-do list. qodobka afraad ee kaa caawin doona inaad noqoto qof productivity leh maalintiisu ay u shaqeyso waa inaad leedahay time blocking. waa inaad waqti u xidhaa. maadaama aad markii hore aad soo samaysatay to-do list, hawsha kuu muhiimka markaad qorato waa inaad hawsha aad waqti u samaysaa. haddii ay tahay hawshaasi hawl iska furan oo 3 hours ama 4 hours ay kuu tahay, waxaa laga yaabaa inaad ka caajisto ama aad hawsha kuu suurtagelin.
waxa kaaga qiimo badan 1 hour ama 30 minutes oo aad geliso aad focused aad tahay taasaa ah wax soo saar badan kaana caawinaysa haddaad isticmaasho technical time blockedkani wuxuu saaid u caawinayaa hawl kasta oo noloshaada muhiima hadday caadooyin tahay hadday shaqo tahay hadday ay tahay inaad jimicsi samayso wax walba oo nolosha u muhiima waxa weeye time blocked ay dad u samayso waxaa meesha ka baxaya multitasking waxa weeye inaad shaqo kugu dul qabato for example inaad samayso inaad book akhrido oo aan haddana mobilka isticmaalayso waxay noqonaysaa 2 shaqo inaad isku hayso marka waa inaad time u samaysaa focusedna aad tahay hawshaa markaad dhamaystirto inaad hawsha kale aad u gudubto haddaad 2 shaqo isku qabato waxaa laga yaabaa in aad maskaxdii aynay u qaban sidii loogu talagalay hawshii muhiimka ku ahayd waxaa wanaagsan inaad noqoto qof timekiisa uu u xiran yahay waqtigaas uu ku guda jiro hawsha muhiimka ah waayo taasi waxay si weyn kaaga caawinaysaa inaad noqoto qof wax soo saar badan taskiga ama listiga maalinta u yaalana mid walbana haddii uu go-an yahay waqtigiisu 1 hour aad ugu talagasho 1 hour iskaas hadduu dhammaado aad joojinayso waxaa si fudud kuugu suurtagelaysa inay hawshaasi ku suurtagasho qodobka 5aad waa qodob dhammaantiin caqabada nagu ah inaynu iska xidhno all instructionka oo dhan ama waxyaabaha caqabada ku ah inaynu hawl muhiima nolosheena aynu qabsano sida social mediaha teleefanadeena applicationada fara badan baa ku jira sidoo kale environmentiga aad hawsha ku qabanayso oo kale inaad iska fiiriso tusaalahaan haddaad wax akhriyayso waa inaad environment degan aan qaylo iyo buuq iyo mobile aan ku ag online aad wax ku akhrida taasina waxay si weyn uga caawinaysaa inaad noqoto qof maalintiisa ay u shaqayso hawlqabadkiisana oo u shaqeeyo waxa weeye waa inaad iska xidhaa wax walba oo kaa xanibi kara kaa joojin kara caqabad ku ah hawsha aad qabanayso sida inaad TikTok, Facebook iyo applicationada kale aad isticmaasho waqtiga hawshu ay kugu taalo hawsha markaas dhamaystirto isticmaal laakiin inta ka horeysa waa inaad hawsha dhamaystirtaa telefoonka aad off ka dhigtaa notificationka aad iska xidhaa taasina waxay kaa caawinaysaa inaad dhamaystirto hawsha kugu muhiimka qodobka 6aad ee ugu dambeeya kaa caawinaya inaad noqoto qof productivity leh waxa weeye inaad leedahay constant ama inaad leedahay joogti hadaf in la dhigtaa aad bay u fududahay hadaf in la qorsheeyo aad bay u fududahay hadaf inaad listigiisa ama kala horumarintiisa inaad qortaa aad bay u fududahay laakiin runtii aad bay u adag tahay inaad joogtayso hawl adiga kuu muhiima noloshaana horsocod samaynaysa waa inaad samaysaa joogtiin wax walba la joogteeyeen wax wanaagsan ayaa ka soo baxa hawl kastoo noloshaada muhiima haddaad joogtayso runtii wax badan ayaa kugu suurtageli karaa noloshaada challenge waad la geli kartaa 30 days to 21 days oo aad ku fiirinayso bal intee in leeg ayaad wax joogteyn kartaa waxyaabahan soo sheegay oo dhan waxa base u ah ama saldhig u ah inaad wax joogtayso haddaanad joogteen aanad u lahayn maalin walba listigaaga haddaanad qorin maalin walba listigaaga haddaanad ka shaqaynayn waxyaabaha kuu muhiimkaa noloshaada hadday shaqooyin ganacsi wax walba noqon lahayd haddaanad joogteynin waxba kuuma suurtagelaya si aad ugu guulaysato wax walba aad jeceshaa noloshaada waa inaad leedahay joogtiin taasina waxay kaa caawinaysaa inaad noqoto qof productivity aad baa u mahadsantahay muuqaalkan kooban intaasan kusoo koobayaa waxaan jecelahay inaad la sii wadaagtaan walaalaha kale ee jecel horumarka noocan oo kale fadlan hadday tahay markii ugu horeysay muuqaalka like saar subscribe saar si uu walaalo badan u gaaro